weli ma maqashay ereyga crypto ama cryptocurrency dad badan way maqleen balse tiro yar ayaa fahmay waxa uu dhab ahaantii yahay crypto waa mustaqbalka lacagta waa halka lacagtu u socoto maanta kumanaan qof ayaa lacag ka sameeya cryptada qaar iyagoo ka ganacsada qaarna iyagoo maalgashi ku samaysta wax kasta waxay ka bilaabmaan aqoon yar iyo go'aan adag kamid ah hababka dhaqaale looga sameyn karo online-ka wax weeye maalgashiga lacagaha cryptocurrency lacagahan cryptocurrency oo laba hab looga faa'iideysto in la maalgashado iyo in lagu sameeyo wax la yiraahdo trading hadda waxaan ku diyaarinay koorso dhameystiran oo Soomaali ah oo lagu baranayo lacagaha cryptocurrency koorsada waxay isku jirtaa laba qaybood qayb theory ah iyo qayb practical ah qaybta theory-ga waxa lagu baranayaa buug ku qoran af Soomaali oo ka kooban 46 page oo si fudud loogu sharaxayo aasaaska lacagaha cryptocurrency sida looga faa'iideysan karo caqabadaha ku gadaaman iyo sida wax weey dhaqaale looga sameyn karo buuggaas markuu ardaygu dhameeyo wuxuu u gudbayaa qaybta practical-ka waxay ka kooban tahay 8 mawduuc oo kala duwan oo almost ka kooban 29 muuqaal oo ku gaarsiinaya sida lacagahan u maalgashan lahayd ugana trade gareyn lahayd marka laba qaab baa looga shaqeystaa waa investment iyo trading bal maalgashi markaan ka hadlayno waa maxay maalgashiga sida uu u shaqeeyo iyo sida faa'iido looga sameeyo bal aan tusaale soo qaadano maalgashiga muhiimadda uu leeyahay tusaalaha ugu horeeyo ugu caansan horta lacagta ugu caansan lacagtan waxa la yiraahdaa bitcoin coinska ama lacagtan waxa la yiraahdaa bitcoin waxay soo baxday ama la aasaasay 2009kii marka hore dad badan ma aaminsanay laakiin qiimihiisu si tartiib ah ayuu u kordhay aan sameeyna xisaab fudud bal anda calculator-kaaga qaado aan isla xisaabino sida investmentigu nolosha dad badan uu bedelay malaayiin qof oo maalqabeennana uu dunida dabcan ugu soo kordhisay lacagahan la yiraahdo cryptocurrency balan eegno sanadii 2010kii hal bitcoin wuxuu qiyaastii ahaa 0.203 waa wax 5 senti ka yar waa 0.203 ayuu ahaa sanadkii 2010 bitcoin halka bitcoin haddii qof uu $100 ku maalgashaday waqtiga 2010kii $100 haddii qof uu gashaday lacagta bitcoin bal $100 waxaad u qaybisaa 0.203 oo xilliga ay mareysay qofkaasi wuxuu heli lahaa 33333 bitcoin ayuu heli lahaa lacagta la yiraahdo bitcoin 33333 buu ka heli lahaa qofkii maal gashaday maalinta $100 gashaday haddii maanta hal bitcoin uu yahay $100,000 maanta hal bitcoin meesha ugu sareysa horta ay gaadhay $125,000 ayaa hal bitcoin gaadhay 2025kii 2026 waxoogaa hoos ay usoo daadatay 70,000 ilaa 80,000 bay ku wareegaysaa marna 100,000 ayay ku laalaabanaysaa bal aan xisaabino 100,000 marka ay gaartay qofka hadduu iska iibiyey 33,333 qofka haystay $100,000 haddii uu kala baxay maanta imisuu helayaa $3.3 billion ayaa akoonkiisa ku jiri lahayd waa $3.3 billion waa lacag aan runtii inaba caadi ahayn waa taajir qofkaasi waa qofkii kaliya intuu xilligaa gashaday lacagta haysan lahaa halka waxaynu tusinaysaa marka faa'iidada ay leedahay maalgashiga lacagahan cryptocurrency in la maalgashado aan si fudud aan calculator ku sameeyo aan tusaale kale soo qaadano marka aynu ka tagno tusaalaha hadda aan ku sheegay ee bitcoin lacagta bitcoin lacag la yiraahdo coin la yiraahdo Solana qiimihiisu $290 ayuu maray ayuu 290 way qiimaha ugu sareeyo uu gaaray hadda 2026 lixda wuxuu soo taabtay $60 buu soo taabtay qiimihiisu bal ka waran qofkii $500 gashaday $60 markuu u marayo imisu xabuu helayaa waa 8 xabo iyo 3 macnaha senti ayuu helayaa waa 8 xabo iyo 6 ayuu helayaa haddii marka 290 ay gaadho iska iibiyo isla markiiba u laabanaysa lacagtan waa lacag Solana waa lacagaha ugu muhiimsan waa 290 markay gaadho hadduu iska iibiyo $290 wuxuu helayaa $2,416 imisu isagu gashaday $500 gashaday ka jar $1,916 waa $2,000 buu ka faa'iiday sanad gudihii ama bil gudihii ayaa lacagtu inta ku gaari kartaa coinka maanta $60 maraya waxa laga yaabaa saddexaad ama labaad dhamaadkeeda inuu 240 inuu dib ugu laabto marka halka waxaan arki doonaa faa'iidada ay leedahay maalgashiga in cryptocurrency in la maalgashado faa'iidada ay leedahay laakiin mar walba xasuusno suuqan faa'iidada iyo khasaaro labadaba waa leeyahay marka faa'iidadiisa runtii aad u badan khasaarahuna dabcan qaab loo maamulo ayaa jira coinsku korna way aadaan hoosna way soo aadaan haddaba inagu waxaan isweydiinaynaa arday ahaan ama arday Soomaaliyeed sidee ayaad uga faa'iideysan kartaa marka lacagahan cryptocurrency
ardaygu wuxuu baran karaa maalgashi sax ah sida maalgashi loo sameeyo wuxuu ku shaqaysan karaa online isagoo sameynaya markaa trading oo lacagaha maalgashan tusaale coin maanta maalgashanaya qiimihiisu markuu kor u kacana waa iska iibinaya tusaale haddaad maanta coin $100 ku iibsato coinki markuu qiimihiisu kor u kaco ama 150 gaaro ama 120 qiimihiisu wax ku darsamaan inaad iska iibiso ku dhufo ka dhaqaaq baa la yiraahdaa coinki markuu jabana inaad iibsato markuu iska kor u kacana aad iska iibiso inta yar oo isbedelkaana aad faa'iido ku samayso runtii marka labada qaab baa looga shaqeynsan karaa waa investment iyo trading labada qaab baa looga shaqeynsan karaa marka qaybta practical waxay ka kooban tahay 8 mawduuc oo kala duwan oo almost ka kooban 29 muuqaal oo ku gaarsiinaya sida lacagahan u maalgashan lahayd ugana trade gareyn lahayd modulka koowaad ama mawduuca wax la cutubka koowaad waxyaalaha lagu baranayo waxa kamid ah inaad hesho markaa buugga lagu baranayo buuggan aan u bixinay bilowga dhaqaalaha cusub oo lagu baranayo lacagaha cryptocurrency buugga markaad hesho waxaad u gudbisaa qaybta practicalka ah oo isla ku jirta cutubka koowaad cutubka waxa ku baranaysaa waa maxay central exchange-da dabcan lacagaha crypto laga sarifto laba u kala baxaan kuwa la yiraahdo central exchange iyo kuwa la yiraahdo decentral exchange waxaan arki doonaa marka waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin labada exchange waa meelaha laga iibsado lacagaha cryptocurrency modulka koowaad ama cutubka labaad waxaan ku baran doonaa waxa la yiraahdo exchange-ga ugu weyn ee lacagaha cryptocurrency runtii lagana iibsado laguna iibiyo loogana trade gareeyo laguna maalgashado oo la yiraahdo Binance marka Binance account sida account looga samaysto sida account-kaaga verification loogu sameeyo sida waxa weeye account-kaaga amnigiisa loo xaqiijiyo iyo sida marka asaaska loo isticmaalo waxa la yiraahdo Binance-ga modulka saddexaad waxaad ku baran doontaa waxa weeye meelaha ugu muhiimsan ee koonka laga eego marka rabto coin crypto inaad iibsato meelaha ugu muhiimsan ee laga eego waxaan kaloo arki doonaa practical ku saabsan sida loo qiimeeyo coinka intaad iibsan ka hor waxaan arki doonaa sida modulka ku jira sida lacagta taleefankaaga ku jirto loogu bedelo crypto lacagta taleefankaaga ku jirto ee taleefankaaga aad ku haysato sida crypto loogu bedelo adiga haddii aad isticmaalayso SAD haddaad isticmaalayso EVC haddaad isticmaalayso Golis lacagta taleefankaaga ku jirta sida loogu bedelo markaa ee crypto loogu bedesho iyo waxa kaloo isla mawduucan ku arki doontaa sida faa'iidada aad ka samayso cryptocurrency dib loogu celiyo marka taleefankaagi haddii aad ka soo dirtay EVC ama SAD ama SAL lacagtii marka aad cryptada ka faa'iiday sida taleefankaaga loogu shubto modulka afraad ama cutubka afraad waxyaabaha ku baranaysa waxa kamid ah inaan baranno waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin exchange-yada la yiraahdo Binance, Coinbase iyo Bybit oo dabcan saddex exchange oo central ah waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin sidoo kale waxaad cutubkan ku baranaysaa meelaha lagala socdo xogta lacagaha cryptocurrency coinska markaa soo baxay coinska faa'iidada leh coinskada taa ee wax weeye suuqa wararka suuqa maadaama lacagahan crypto runtii ay aad u saameyn ugu yeeshaan markaa wararka suuqa ay saameyn xoog leh ku yeeshaan modulka shanaad waxaad ku baran doontaa wax la yiraahdo decentral exchange wallet-ka la yiraahdo trusty wallet iyo sida loo isticmaalo oo runtii aan kaaga baahnayn passport document midna aan kaaga baahnayn oo toos aad u samaysanayso sida Wafi Mastercard oo kale aad u samaysanayso marka trusty wallet waxaan arki doonaa marka trusty wallet iyo qaabka loo samaysto sida lacagta kugu jirto loogu shubto sida coin looga iibsado sida lacagta loogala baxo sida lacagta loogu diro Binance haddaad haysato account Binance ah iyo sida waxa weeye decentral exchange loogu xirto oo waxa weeye coins looga dhex iibsado modulka lixaad waxaan baran doonaa waxa la yiraahdo goorma ayaa crypto la iibsadaa goorma ayaa crypto la iska iibiyaa qorshaha ugu fudud ee aad lacagahan crypto uga faa'iideysan karto kuna iibin karto kuna iibsan karto modulka toddobaad waxa lagu baranayaa sida portfolio loo samaysto lacagaha aad iibsatay si aad ula socoto dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan kuwa faa'iidada sameeyay kuwa khasaarada sameeyay sida portfolio marka aad kula socoto lacagaha cryptoda ah sida loo samaysto sida coin market oo ah suuq weyn oo laga socdo dhaqdhaqaaqa lacagahan loo isticmaalo modulka sideedaad ama cutubka sideed ugu dambeeya waxaan arki doonaa sida Binance looga trade gareeyo oo lacagaha trade sida lacagaha wax weeye loo trade gareeyo waxaan arki doonaa sida looga hortago marka khasaaraha in cryptocurrency aad ku khasaarto sida khasaaraha looga hortago waxaan arki doonaa coinska ugu muhiimsan ee mustaqbalka leh ee la maalgashado waxa kaloo cutubka ku jira sida looga fogaado wax weeye scammerska ama wax weeye dadka marka doonaya in macnaha dadka ay cryptoda ku dhacaan iyo khiyaanooyinka waxyaabaha marka lagu garto marka koorsada waxay ka kooban tahay 8 cutub oo runtii practical ah ardaygu ku baranaya sida loo maalgashado iyo sida looga targareeyo lacagahan iyo runtii buugga iyaduna wax weeye oo uu ku helay wax weeye wax la yiraahdo wax kasto marka asaaska lacagaha cryptocurrency ah marka koorsada runtii qiimo dhimis ku jirta kaliya $15 baad ku helaysaa almost koorsada waxa loogu talagalay 2 bilood inay socoto ardayda qaar bil bay ku dhameeyaan kuwa 28 bil bay ku dhameeyaan kuwa 25 bil bay ku dhameeyaan waxay ku xirantahay qof walba iyo sida uu dadaalkiisa u yahay waxa lagu qaadanayaa website-ka akademiyada oo agalaysan academy.com website-ka ayaad ku qaadanaysaa marka 10 oo dhameystiran koorsada
koorsada waxyaaba lagu qaadanaya dabcan waa soo fiirin kartaa website-ka booqo arag koorsada casharada ay ka kooban tahay waxaasoo dhan waa sii daalacan kartaa inta aan kuu sheegnay marka insha Allah arda badan baa ka faa'iidaystay adiguna waxaan rajeynaya inaad nagu soo biiri doonto marka soo dhow. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.